السلام عليكم وعنا wanaagsan soo dhawaada waa nabad daawadayaal meel waliba dunida aad ka joogtaan magacii waa Maxamuud YouTube channelkeygana waa Engineer Maxamuud insha Allah cashirkani waxa ku soo bandhigi doonaa habka ugu fudud ama markaas taleefankaaga hadii uu markaa ku weydiisto in lambar markaa uu wacdo oo kaliya sidee ayaa markaa ugu xiri kartaa appkaas oo kaliya qofka ka dalbaday kaliya waxaad u baahan tahay marka hore inaad soo furato settingska inaad tagto marka hore kaliya waxaad dooranaysaa settings ayaad dooranaysaa setting markayna doorano kadib waxaynu ka sii dooran doonaa halka ay markaas ay ku qoran tahay biometric halka ay ku qoran tahay ayaynu ka dooran doonaa setting ayaynu dooranaynaa setting markayna doorano kadib waxaynu dooranaysaa biometric halka ay ku qoran tahay ayaynu dooranaynaa markayna doorano waxaynu ka sii dooranaynaa halka ay markaa ku qoran tahay other security settings ayaynu ka dooranaynaa markayna doorano waxaynu markaasi open ka dhiganaynaa halkaas oo ah bin windows ayaynu open ka dhigaynaa sidaas markaynu open ka dhigno waynu ka laabanaynaa markaynu ka laabano waxaynu markaasi dooranaynaa halkaas oo recentiga ah ayaynu dooranaynaa waxaan rabaa inaan xiro appka markaasi phone inaan xiro ayaan rabaa qaybta sare ayaynu ku dhufanaynaa phone ayaynu dooranaynaa sidaas ayaynu markaasi ugu dhufanaynaa waxaynu ka sii dooranaynaa halkan oo bin this app ayaynu ka dooranaynaa automatically sidaad arkayso halkan wuxuu ku leeyahay markaasi okay halkan ayaynu ku dhufanaynaa sida aad u jeedaan hadda qofku uu garaacan karaa lambar oo kaliya laakiin halkan kaga ma laaban karo sidaad u jeedin wax markaasi ka laabasho ah qofka ma sameyn karo wax ka laabasho ah qofka ma sameyn karo waxaan u baahanahay markaasi sidee ayaa markaa la iskaga qaadaa ama loogu furaa kaliya waxaad u baahantahay inaad tagto halka recentiska iyo qaybta markaasi baagi ayaad hal mar isla qaban doontaa si markaasi aad kaga laabato hal mar ayaynu isla qabanaynaa automatically waa kaas hadda waa ka pin screen xalliya marka screenka waa unblind waa markaas waa la furay automatically hadda meeshaan raw waan tagi karaa waa iska caadi haddii uu kusoo gaaray daawada muuqaalkani channelka like grace sidoo kale share comment lana wadaag saaxiibadaada si ay kaga faa'iideystaan insha Allah halkani waxaynu kusoo bandhigi doonaa muuqaalo xiiso badan aadna markaasi waxyaabo badan kaga faa'iidi doontaan insha Allah tutorialka maanta halka ayuu ku egyahay soo dhawaada dhamaan asxaabta ku xidhan YouTube kan insha Allah kulan dambe xiiso